بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaanu casharka anagu maanta uu ku saabsan yahay maa yajibu lahu lwudu awal waa kitaabkii alwajiiz fi fiqhi sunna walkitaab alcaziiz kitaabkaasaanu ku maanta cashirkiisa qaadanaynaa darsiga anagu wuxuu ku saabsan yahay waxa waajibinhaya weysada ama maa yaxrumu cala almuxdith qofka xaaraan waxa qofka muxdithka ah oo weysada qabin waxa xaaraanta ka ah qofka aan weysada qabin waxa xaaraanta ka ah oo uusan u dhowaan karin marka u horeysa waxaa weeye maa yaji asalaatu wey salaad ma tukan karo qof muxdith ah oo salaada marka la weyseysanayo waa istibaaxa asalaa waxaa lagu banaysanayaa salaad in la tukado weysada haddayn weysadii jirin salaad ma jirto waxaa daliil u ah qowlullahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum aayaddaa suuratu lmaa'ida ayaa daliil u ah war dadka ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyeyo idaa qumtum ila asalaa idaa aradtum alqiyaama ila asalaa haddaad doonaysaan inaad salaad dukataan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina dhaqa iyo aayadda dhammaystirkeeda oo dhan soo marnay muxuu ahaa dhowr jeer weysada yacni wejiyadiina dhaqa muxuu ahaa maaragtay gacmihiina dhaqa madaxiina masaxa lugihiina dhaqa sidaas muxuu ahaa aayaddii dhahaysay wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyeyow idaa qumtum ila asalaa salaad haddaad u istaagtaan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina dhaqa waliqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama waxaa daliil u ah inaan salaada qof aana weyse qabin uusan salaad tukan karin nabiga qowlkiisa laa yaqbalu allahu salaatan bigayri طuhuur laa yaqbalu llahu ilaahay aqbali maayo salaatan salaad aya salaatin wey bigayri طuhuur weyse la-aan markaa weysada salaada waxaa shardi u ah in uu qof weyse qabo min shuruudihaa bay ka mid tahay laa yaqbalu allahu ilaahay aqbali maayo salaatan salaad bigayri طuhuurin daahir la-aan midda labaad oo qofka xaaraan ka ah haddii uu muxdith yahay hadduusan weyse qabin waxaa xaaraan ka ah oona u banaanayn inuu sameeyo aطawaafu bilbeyt beytullaahi alxaraam in uu kacbada dawaafo uma banaano liqowlihi salى اllahu calayhi wasalam yaa u daliil u ah aطawaafu bilbeyti beytka ilaahay in la dawaafo salaatu wey ilaa ana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala axala fiihi اlkalaam dawaafka wuxuu baneeyey in la hadlo oo salaada ma banaanayn in gudaheeda lagu hadlo oo qofku markuu allahu akbar yiri ayaa hadal oo dhan aanan waxa salaada aana mxua ku jira aanan ahayn buu xaraan ka noqonaya ama dawaaf qofku waa hadli karaa maaragtay wuxuu doonuu ku hadli karaa oo mxua maaragtay inta uu dawaafi hayo waxa wanaagsan oo dhan ayuu mxuaha maaragtay waxaana xaaraamayn oo hadal ah oo dhan buu ku hadli karaa marka adawaafu bilbeyt beytkoo la dawaafo waxaa shardi u ah weysada waxaa shardi u ah inuu qofku weyse qabo liqowlihi salى اllahu calayhi wasalam ayaa daliil u ah aطawaafu dawaafkii bilbeyti la dawaafo salaatun wey ilaa ana allaha tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala axala fiihi nabiga saasuu leeyahay wuxuu qofka yani dawaafka dhexdiisa ilaahay wuxuu baneeyey alkalaama in la hadluu baneeyey maa yustaxabu lahu lwudu intaa labadaas waxaanu sheekhu nooga xusay waxyaalaha qofka uusan u dhowaanaynin hadduu weyse qabo hadduusan weyse qabin waxyaalaha uusan u dhowaan karin oo waxaan ihi waa asalaatu waطawaafu bilbeyt haddana sheekhu mxuuah wuxuu noogu xijiyey maa yustaxabu lahu lwudu weysada waxyaalaha sunnada ah sunnada qofka waxa muslimka ah waxaa sunna u qofka waxaa sunno u ah waxyaalaha dheh
waxyaalaha ay sunnada u tahay in weyse la qabo oo ashyaabaha sunno ay u tahay marka aad samaynayso inaad weyse qabto. kow dikrullaahi caza wajalla, ilaahay markaad xusayso in aad maaragtay aad weyse qabto. lixadiidi almuhaajir ibnu qunfud, ninkaasaa daliilu xadiidkiisa uu yihi annahu sallama cala annabiy, nabiguu salaamay wa huwa yatawada'u, asagoo nabigu weysaysanaya, falam yarudda calayhi xataa tawada'a, umuusan celinin ilaa uu weysadii ka dhameeyo. faradda calayhi waa ku celiyey wa qaala wuxuu yihi innahu lam yamnacnii, igama reebin inaan salaadaada radiyo, an arudda calayka, inaan salaadaadii radiyo igama celinin, ilaa anii karihtu waxaan anigu nacay an adkura allaha, ilaahay inaan xuso ilaa calaa tahaaratin, dahaaro mooyeene wax kale inaan ku xuso. sidaasaa iga reebtay oo anigoon weyse qabin, anigoona dahaaro qabin in aan ilaahay xuso, taasaa ii diiday oo markii aad isalaantay kaamaana radinin. saas wey. lxadiiثi waxaa dikrullah caza wajala waxaa u daliila lxadiiثi اlmuhaajir ibni qunfud annahu salama calى الnabiy, ninkaasu wuxuu salaamay nabiga wa huwa yatawada'u, nabigoo weysaysanahaya, falam yarudda calayhi, nabigu uma radinin oo salaanta markii la isalaamo in la radiyaa mxuu maartay yaa waajib ah, xataa tawada'a, ilaa uu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu weysadii ka dhameeyey ayuusan radinin. faradda calayhi wuu u celiyey wa qaala wuxuu yihi, markaasuu u celiyey oo markuu weysadii dhameeyey wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh, saasuu ku yihi. wa qaala markaa nabigu wuxuu yihi innahu lam yamnacni, aniga igama reebin an arudda calayka, inaan kuu celiyo salaanta, ilaa anii karihtu, inaan anigu kohsaday mooyeene, an adkura allaha, ilaahay inaan xuso, ilaa calaa tahaaratin, anigoo dahaaro ku sugan mooyeene, anoon dahaaro ku sugan inaan xuso ayaa nacay wey. midda labaad oo weysada ay sunnada tahay annawmu wey, qofku hadduu seexanayo inuu weyse qabaa la doonaya, yaa sunno ah. lima rawaahu albaraa ibnu caazib qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa atayta masjacaka, qof haddaad tagto maaragtay meeshaad seexanaysay, fatawada weysayso wuduu'aka lisalaa, weysadaada maaragtay salaada, uma dajic u seexo calaa shiqika alayman, dhinacaagada midige u seexo, uma qul waxaad tidhaahdaa allaahuma aslamtu nafsii ilayka, allaahuma yaa allah, ilaahayow aslamtu nafsii, nafteydaan u hogaamiyey ilayka adiga, wawajahtu, ilaahayow waan maaragtay u jeediyey wejhii wejigayga ilayka adiga xaggaadan u jeediyey, wafawadtu waan bandhigay amrii amarkayga ilayka adiga, wa alja'tu, ilaahayow waan magan galay dahrii dhabarkayga waxaan ku tiiriye oo ku magangeli ilayka, dahrii dhabarkayga waxaan magangeliyey ilayka adiga, raqbatan, anigoo rajaynahaya adiga maaragtay, wa rahbatan ilayka, anigoo adiga kaa baqahaya, adigana ku rajaynhaya. rajaa oo qofka mu'minkaa mar la arkaba ilaahay inaad ka baqdo, mar la arkada ilaahay aad rajayso, midaasaa la doonaya. waxa wey waa shay wey oo waa kii ay ambiyada ilaahay uu ku ammaanay markuu ka soo hadlay, innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunanaa ragaban warhaban wa kaanuu lanaa khaashiciin. markaad ilaahay baryayso waxaa weeye ilaahay inaad ka cabso, inaad rajaynayso inuu wax ku siiyo, wanaagga iyo khayrka ilaahay inaad ka rajaynayso, ood raxmadiisa waasica aad rajaynayso, inaad ka baqayso maaragtay ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa iyo caradiisa, maaragtay labadaasaad u dhaxaysaa. marka sidaasuu nabigu noo barayaa, waxau leeyahay wa alja'tu dahrii ilayka ragbatan ilayka, anigoo adiga ku rajaynahaya, wa rahbatan ilayka, anoo adiga kaa baqahaya. laa malja, meel la magan gala ma jirto, walaa manja, badbaado ma jirto minka adiga laga badbaado
ilaa ilayka adiga mooyeene allaahuma ya allah ilaahayow aamantu bikitaabika waxaan ilaahayow rumeeyey kitaabkaada aladii anzalta aad soo dejisay wa nabiyaka nabigaadan yaan ilaahayow yaan rumeeyey aladii arsalta aad soo dirtay fain mutta nabigu wuxuu yihi haddaad dhimato min leylatika habeenkaagaas fa anta cala alfitra adigu waxaad ku sugan tahay fitrada islaamkaad ku sugan tahay wajcalhuna ka yeel aakhira maa tatakalamu bihi waxaad ku hadasho midka u dambeeya ducada ayada ka yeel markaa ducadaas muxuu aha markaa annowm markaad seexanayso inaad weyse qabto ducadaasana aada akhriso sunnada meeshaasaa marka yaanu ka qaadanaynaa oo weysada waxaa weye waxay jiifka hurdada waxaa sunno u ah inaad weyse qabto wey midda saddexaad aljunuubu wey junubka qofku hadduu junub qabo in uu weysaysto oo junubkii uu kusii jiro intuusan mayranin ayadana waxa wey waa sunno wey idaa araada hadduu doono an yaakula inuu cuno qofkii muxuu aha maaragtay junubka qabay ow yashraba ama uu cabo ow yanaama uu seexdo ow yucaawida aljimaaca yacni galmadii inuu ku noqdo hadduu doonayo muxuu ahaa intaas oo dhan waxaa sunno u ah in uu weyse qabo oo weysaha sunno u ah can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat waxay tihi kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay baa ahaa idaa kaana junuban hadduu janaabo qabo fa araada uu doono an yaakula inuu cuno ow yanaama inuu seexdo tawadaca wuu weysaysan jiray wuduu'ahu lisalaa weysadiisa salaada oo kale ayuu weysaysan jiray oo markaa qofkii junubka ahaa inuu weysaysto weye inta uu janaadaba ku jiro uusan mayranin oo mayrashadii uusan gaarin hadduu wax allaala wixii sha'ni ah oo uu samaynayo inuu arrinkaas sameeyo wey wa can camaar ibnu yaasir waxaa laga wariyey saxaabiga radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay rakhasa liljunubi ninkii jaanubka ahaa wuxuu u ruqseeyey idaa araada hadduu doono an yaakula inuu wax cuno ow yashraba inuu cabo ow yanaama inuu seexdo an yatawadaca inuu weysaysto wuduu'ahu lisalaa weysadiisa salaada oo kaleeto oo markaa ayada ah xadiidka kaleetona waa kan wa can abi saciid alkhudriy abi saciid alkhudri wey can nabiy sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi idaa ataa axadukum midkiin hadduu u tago muxuuha ahlahu ehelkiisa hadduu u golmoodo uma araada uu doono an yacuuda inuu ku noqdo falyatawadac ha weysaysto marka intaas oo dhan ayay weysadu junubka axaadiistaa saddexda ah oo kala duwan oo muxuu ah maaragtay ayaa ku soo aroortay oo qofku hadduu junub yahay waa inuu weysaysto sha'ni la arko shu-uuntiisa ka mid ah midda afaraad waxaa weeye oo ka mid a waxa weysada loo sunneeya aanu ku jirnaa maa yustaxabu lahu lwuduu ayaanu ku jirnaa midka afaraad waxaa weeye qabla alghusli intaana la mayranin sawaaءun kaana waajiban am mustaxaban inuu qofku intuusan mayranin markuu weysada inuu meerashada markuu bilaabahayo meerashadaasu ha ahaato mid waajib ah midka junuubka iyo ka imaanaysa wey ama mustaxab ha ahaato miday ahaataba inuu weysaystaa sunno ah can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ida اktasala min aljanaabati janaaba hadduu ka mayranahayo yabda-u wuxuu bilaabi jiray muxuu maarata wuu bilaabi jiray oo fayaksilu yadayhi labadiisa cumaacun buu dhaqi jiray huma yufriqu wuxuu hoobin jiray biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixdiisa macnaha gacantiisa midiga oo biyo ka buuxaan buu bidixda ku shubi jiray buu ku hoobin jiray midigtiisa calaa shimaalihi fayaksilu farjigiisu ku dhaqi jiray macnaha waxaa weeye farjigiisu hortoora ka bilaabaya oo bidixdu ku dhaqahayaa gacanta midigo oo biyo ku jira yuu ku shubhayaa fayaksilu farjahu uma yatawada uu weysaysanhaye wuduu'ahu lisalaa weysada uu salaada u weysaystooo kale kama duwano weysada aada weysaysanayso waa midda weysada muxua loo yaqaano oo salaada lagu tukado midaasaad weysaysanhaye wey marka qofka intuusan mayranin ama junub ha ahaado meerashadaasu
ama ha ahaato mustaxab ha ahaato ama waajib ha ahaatee waxaa sunno ah muxuu ahaa maaragtay inuu weysaysto. midda shanaad waxaa weeye aklu maa masahu naar, qofkii haddii cuno wax uu taabtay naar oo wax la kariyay hadduu cuno inuu muxuu ahaa weysaysto ayaa sunnaa. lixadiidi abi hurayra qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu asagoo leh tawada'uu mima masat الnaar, ka weysaysta wax allaala waxay ay taabatay naartu. marka haddee waxaa lagu xumbaarayaa amarka kanu nadbi baa lagu xumbaarayaa ayada oo meelo kale ka sugan inaysan waajib ahayn muxuu ahaa maaragtay. marka laakiin in laga weysaysto sunaa lagu xumbaaraya. wa huwa maxmuulu cala alistixbaab, waajibka kan ilaanay waxaa weeye amarku wuxuu keenaa yaqtadi lwujuub, haddii wax lisfaro wuxuu keenayaa waajibnimuu keenayaa. marka hadday saa tahay tawada'uu, xadiidka waa amar, weysaysta mimaa masat innaaru, naartu waxay taabatay waa amar wey. marka sheekhu wuxuu leeyahay wa huwa maxmuulu cala alistixbaab, amarka kan waxaa lagu xumbaari sunnanimo. maxaa daliil u ah lixadiidi camr bni umaya adamari, ninkan muxuu aha xadiidkan uu wariyey saxaabiga kan, qaala wuxuu yihi ra'aytu annabiya salى اllahu alayhi wasalama, waxaan arkay nabigi ilaahay salى اllahu alayhi wasalama oo yaxtazu goosanahaya min katifi shaatin, ri garabkeeda hilibkeeda cunahaya oo goosanahaya, faakala minhaa waxbuu ka cunay, faduciya ila salaa, salaadii baa loogu yeeray, faqaama wuu istaagay, wa طaraxa sikiin, sikiintiibuu tuuray maaragtay, wasallaa wuu tukaday, walam yatawada. marka xadiidka kanu haddee garabkii lasoo kariyey muxuu maaragtay ayuu nabigu cunay, markaasuu asagoona weysaysanin ayuu galay. xadiidkii horena tawada'uu mimaa masat innaar buu ahaa. marka waxaa lagu jamcinayaa inay sunno tahay. midda saddexaad waxaa weeye likulli salaatin salaad la arkaba in loo weysaysto, oo qofku asagoo weyse qaba oo weysadiisii hore qaba inuu tajdiidsado sunno wey. likulli salaatin, lixadiidi buraydata qaala wuxuu yihi kaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam, nabigii ilaahay baa ahaa yatawada'u ku weysaysta cinda kuli salaatin salaad la arkaba. falamaa kaana yowmu اlfatxi, maalinkii fatxiga markii la joogay, tawada'a wuu weysaystay. caamu lfatxi sanadkii 8aad wey, nabigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay maka furtay, sanadkaas ayuu u jeedaa yowma alfatxi maalinkaa wey. marka falamaa kaana yowmu lfatxi, maalinkii fatxiga tawada'a wuu weysaystay, wa masaxa calaa khufayhi, labadiisi khufna wuu masaxay, wasalla salawaati, salaadooyinkii oo dhan biwuduu'in waaxidin, hal salaad ayuu hal weyso, salaadihii oo dhan hal weyso ku tukaday. faqaala wuxuu yihi lahu cumar ibnu khadaab radia allahu canhu baa wuxuu ku yihi yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahayow, inaka adiga facalta waa samaysay shay-an shay lam takun tafcaluhu, aadan samayn jirin. faqaala wuxuu yihi camdan facaltuhu yaa cumar, kas baan u yeelay, way bannaan tahay wey. marka xaggeen ka qaadanaynaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam inay sunno tahay mar la arkaba in la weysaysto? cumar baa wuxuu leeyahay shayga kan kugumaanan ogeyn, oo nabigu wuxuu ahaa aslan waxaa u badnaa in uu muxuu ahaa maaragtay uu salaad la arkaba u weysaysto, laakiin maalinkaa ma weysaysanin oo saddexdii salaadihii shantiiba hal weyse uu ku tukaday. midda toddobaad waxaa weeye oo ka mid ah waxyaalaha sunnada u ah cinda kuli xadath, wax la arko oo xadath ah. lixadiidi buraydata, mar la arko uu qofku uu maaragtay uu xadath kaloo ka weyse muxuu ah maaragtay maaragtay xadathka oo dhan kusoo dariyo oo dhan in uu weysaysto, mar allaala markii uu weysada ka jabtaba uu weysaysto. lixadiidi burayda salى اllahu alayh wasalam radia allahu canhu, xadiidu burayda daliil u ah, mar la arko oo weysada ka jabtaba qofku inuu weysaysto, xadiidkan baa daliil u ah. qaala wuxuu yihi asbaxa rasuulu llahi yowman, maalin baa maalmaha kamida
ayaa nabigu waa bariistay fadacaa bilaalan salaad fajar baa la tukaday muxuu markaasuu bilaal u yeeray faqaala wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow bima sabaqtanii ila aljanna maxaa jannada iiga hormartay jannadaan kugu arkay xalay waan muxuu riyadii waxaan kugu arkay adigoo jannada iga horeeya nabiga calayhi salaatu wasalaam riyadiisu muxuu maartay waa waxyi wey waa run wey marka bima sabaqtanii ila aljanna in dakhaltu inii anigu dakhaltu albaarixa xalay waxaan maartay galay aljannata jannada fasamictu waan maqlay khashkhashataka amaami mxua jaandhowgaada iyo kabtaada dhawaaqeeda ayaan maqlay kabtaada jaandhowgeeda ama muxuu aha maartay shanqarteeda yaan hortayda ka maqlay faqaala bilaal wuxuu ihi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow maa adantu qatu ma aanan aadaamin ilaa sallaytu ragcatayni laba ragcadood inaan tukada mooyeene oo mar allaala markaan aadaano waxaa weeye bayna kuli aadaanayni salaad wey maxaa waan tukaday waa waxbaa muxua jiro wey walaa asaabanii xadathun marna weyse igama jabin qatu weligay ilaa tawada'tu cindahu markay iga jabta waa weysaystay macnaha waxaa weye waxaan daa'imay weye weysadaan daa'imay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi lihaadaa arrinkaas dartiis ayaad muxuu ahaa maartay jannada u gashay oon kugu arkay wey marka waxaa weeye oo markaa waxaa sunno ah cinda kuli xadath mar allaala markay weysada kaa jabtaba inaad weysaysato waxaa weye waa sunno wey waxaanu tirinaynaa waxyaalaha sunnada ah oo qofku hadday weysada ka jabto weysada waxyaalaha weysada sunnada u abaan tirinaynaa midda sideedaad waxaa weeye min alqay'i maaragtay matagi qofkii baa matagay lixadiidi macdaan ibnu abi طalxa can abi darda ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaa'a nabigu wuu muxuu ahaa maaragtay wuu muxuu ahaa matagay faaftara wuu afuray fatawada'a wuu weysaystay falaqiitu thawbaan fii masjidi dimishqi baan kula kulmay fadakartu lahu dalika arrinkaasaan u sheegay faqaala wuxuu yihi sadaqa ana sababtu lahu wuduu'ahu weysadiisa aniga ayaa muxuu ahaa nabiga u shubay oo qofkii u shubahayey weysada ku siinayay aniguu ahaa marka waxaa laga weysaysanayaa maxaa tiri qaygii ama matagii xaggiisa waa laga weysaysanaa waa sunno wey oo qofku markuu matago inuu muxuu aha maarata weysaysto min xamli lmayit in la qaado meydkii qaadidiisa hadduu qofku qaado oo muxuu ah maaragtay waxaa sunno u ah in uu weysaysto liqowlihi salى اllahu alayhi wasalama man gasala mayitan qofkii dhaqa meyd falyaktasil waman xamalahu qofkii muxua xumbaarana falyatawada ha weysaysto oo markaa ayada ah haddii qofku dadka dhaqay meydka waxaa sunno u ah inay maydhaan dadka dhaqay waxaa sunno u ah inay maydhaan dadka qaaday oo muxuu aha naxashka qaadayna waxaa sunno u ah inay weysaystaan sidaa wey marka xadiidka darsiga anaga maanta in sha allahu tacaala intaasuu noogu egyahay ilaahay subxaanahu wallahu subxaanahu wa tacaala aclam